tan iyo burburkii dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxa dalka soo maray dawlado kala duwan kuwa oo shacabka Soomaaliyeed ay ku eedan jireen musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta balse hadda ayaa waxa muuqanaya in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ay wado dadaalo lagu dagaalamayo musuqmaasuqa lagu dhaliilo hay'adaha dawladda Soomaaliya inaan halkan uga diro fariin qof walba Soomaaliyeed ama wasiir ahaw ama cid kale ah oo xil u haya dawladda Soomaaliyeed oo ku fikiraya inaad ku takrifasho xoolaha ummadda oo ka shaqeynaya inaad musuqmaasuqdo waxaan ku sheegayaa inaadan alfaneyn ha isku xadin ha isku dhicin waa laga daba imaanaya waana lagu soo xiraya waa la dhaafay waqtigii musuqmaasuqa iyo tuugada waa la dhaafay waqtigii lagu takrifali jiray xoolaha ummadda Soomaaliyeed xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shakhsiyaad badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya xabsiga u dhigtay wax lunsi iyo ku tagrifal ay ku sameeyeen hantida shacabka Soomaaliyeed waxaana arintani ay cabsi ku biri doontaa sida la sheegay dadka wax lunsada ee dawladda ka tirsan haddii aysan wax iska bedelin dabagalkan lagu dagaalamayo musuqmaasuqa Ibrahim Xasan Maxamuud waa gudoomiyaha ururka la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu ka warramaya sida uu arko in shakhsiyaad ay xeer ilaalintu ku soo eedeysay musuqmaasuqa la dhigo xabsi anoo ah Ibrahim Xasan Maxamuud waxaana gudoomiyaha dhalinyarada la dagaalanka musuqmaasuqa ahmiyadda ay dawladda siinaysa inay dadkaas musuqmaasuqa ku soo oogto waa arin macquul ah oo wanaagsan oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed lagu hormariyo walow Soomaaliya ay kaalinta koowaad ay ka gashay 2016 kaalinta koowaad wadanka ugu horeeya developmentiga inaan noqonay wajecelnahay dawladdeena u rajaynayna in ay ahmiyad siiso inay u xirxirto mas'uuliyiin iyo dad shaqaale rayada oo public servant ah oo yacni u shaqeynaya adeegii dadweynaha waa arin loo baahan yahay in mar hore ay bilowdo ay ku wacneed haddana maadaama ay loo joogo waqtigeedii ugu haboonay oo dawladdeena Soomaaliya ay ku hadashay in ay isla xisaabtanka ay ahmiyadda koowaad siinayso iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waa ahmiyadda ugu wanaagsan ee ay ku hormari karto dawlad ama nidaam markii loo baahdo in yacni servanti shaqaale dawladeed markii ay qabanayaan adeegga dadweynaha in yacni ay corruption ka fogaadaan waa arin macquul ah waa arintaas waa arin muhiim ah in laga dagaalamo waana soo dhaweynaa ka shacab ahaan ka urur ahaan anagana diyaar uma nihin in dad muslim ah boqolkiiba boqol in ay musuq ay sameeyaan markii aan yacni sidan xaqiiqiyan aan u hadlo dawladda ahmiyadda ay ugu dhisan tahay oo xukuumadda ay mar kasta tiraahdo isla xisaabtan diyaar una waan dareemayaa inay hore u sii soconayaan haddii aan leedmo anagoo shacabkii ah ka dhalinyaro ahaan maadaama mustaqbalkii jiilka aan nahay dalka inaan yacni aan u garab istaagnin anagan diyaar una haddii ka caajisana annagaanan ka caajisan insha Allah aan daba taagnaano war waxaad sheegayseen oo ahmiyaddii aad saarayseen isla xisaabtanka meey anaga dhahayna mana ka aamusayna ilaa idinkiis marka laga soo tago ururada ka shaqeeya la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa aynu wax ka weydiinay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida ay u arkaan in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ay xabsiga u dhigto shakhsiyaad ka tirsan dawladda musuqmaasuq lagu soo eedeeyay magacaygu waa Caaqil Muumin Cabdiraxmaan Fiidow والله مسوق ماسوق دلكان waxa ragaadi waa musuq maasuq musuq maasuqna meel badan uu ka galay dhismaha dawladnimada waa musuq maasuq oo qaabkii loogu soo heshiiyay 5 beelood oo wax soo darsatay dawladana ka kooban tahay 5 beelood dhismuhu uma sinna dadna banaanka la dhigay dadna sad bursiya la siiyay musuq maasuq halkaas uu ka yimid tan dadka laga qabta markaan u soo gudbo wallaahi sharciyadu waxay waaye in madaxda sare laga soo bilaabo kadib shaqaalaha hoos loogu soo degan way mahane shaqaalihi hoos oo masiinkeenta in lagu laabto ma ahan marka cadaaladdu waxay ma kartaa musuq maasuqna waa la dagaama la dhigi karaa koow madaxda ugu sareysa markii inta la soo xisaabtamo hoos lagu keeno Maad Ali Maxamed waxaan u arkaa musuqa dawladda la dagaalamayso horta waa arrin fiican
waana dawladda ugu horeyso musuqaan la dagaalamaysa aan aragno waxaan ku faraxsanahay haddana waa shacabka Soomaaliyeed Soomaaliyeed arintaas waa arin runtii aad loogu xumaan karo in shakhsiyaad yani lagu soo qabto musuqmaasuq waan arin runtii aad aan u dhalisanahay oo rabo in wax laga qabto intaas ayaan ku soo koobay arinta musuqmaasuqa waan arin runtii aad u baahan wadanka oo dabcan aad u mudan in wax laga qabto dowladda federaalka Soomaaliya ee hoggaanka u hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay wada dadaalo lagu doonayo in lagu soo qabqabto shakhsiyaadka ka tirsan dowladda ee ku kacaya falalka musuqmaasuqa iyadoona xubno ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iminka jalaalka loo galiyay kuwa oo lagu soo eedeeyay in ay ku kaceen falal musuqmaasuqa Mustafa Xasan Cabdi wararka TV-ga STN magaalada Muqdisho